waxaa maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka madasha horumarinta Bariga Afrika oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo DAD. Shirkan oo shalay la daahfuray halkudhigiisuna oo ahaa dowlad dhiska Soomaaliya cashiradii shalay ee tilmaamaha mustaqbalka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay caqabadaha ku gudban hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya. intii uu socday shirka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa qaar ka mid ah jaamacadaha dalka oo ay ka mid tahay jaamacadda Muqdisho waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya madax ka socotay gobolka Banaadir haldoorka aqoon-yahanka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa samata bixinta bulshada Soomaaliyeed burburkii kadib. inta uu socday kulankani waxaa looga hadlay xal u raadinta dhismaha qaranka Soomaaliyeed iyo ahmiyadda ay leedahay dhameystirka dastuurkan qabyo qoraalka ku raagay iyo sida looga gudbi karo xaaladaha taagan xilligan. Professor Ali Sheikh madaxa hay'adda DAD ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda shirkan. waxaan diyaar u nahay bunuugta inaan ka kaalmayno cilmi baarista dalkan wuxuu u baahan yahay in la iswada kaalmayso sharikaadka iyo bunuugta iyo qofka tijaariga oo mushtariga maamula intuba haddaysan jaamacadda iyo hay'adkaasi iskaalmaysanin ma soconayaan. saddeed waxaan rabaa inaan dhammaanteen isku duubanahay waxaan raadinaynana waa dawlad dhismo ee ruux masab loo raadin ma aha kama hadlayno madaxweynaha dajo kama hadlayno ii horeeyana kama hadlayno kuwa dambana kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa dawlad wanaag inaysan dawlad wanaag ciyaar lagu dhisayna waa la hubaayo ilmo dhashay oo la tarbeynaayo inta lala maraayo waa ognahay culayska ay tarbiya leedahay iyo dhismo jaamacadkan waxaan ballan ku qaadaynaa oo hadda aan ka codsanayaa jaamacadka anu ka tirsanahay oo weli maaragtay isma dhiibin daban waa uun hadda Dr. Ibrahim iyo uu ku soo noqon ismale laakiin hadda odayaal waxaa jira iyagoo 39 sano jira soo laabtay baa jiro mahatiiriya ka mid Soomaaliya waxaa ani inaan ku soo noqon u marayn maayo laakiin haddana waxaa weeye odayaashiina jaamacadka madaxda ah iska geeya jaamacadka bunuugta iyo dawladda iyo dhaqaalaheena iyo bulshada iyo nabadda cilmi baaris bay kulligeed u baahan tahay waxaan cilmi baaris u baahnayn ma jiro anu idinka mid baanahay intii lagu shaqayn karo marka in lagu shaqeeyo ayaan rabaa ciddii igu shaqaysanaysana intaan noolahay diyaar baanu ahay waan isku wada shaqaysanaynaa kulligeen. sidoo kale waxaa madasha shirka ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. khubradii halkan ka hadashay labadii maalmood oo runtii baybarska ay soo jeediyeen oo la daabici doono hadana loo ballan qaaday in wax badan laga faa'iidi doono jiilka hadda jiraahu inay wax badan ka faa'iidi doonaan oo aysan macnaha theory inay haysan doonaan nadariye inay haysan doonaan iyagoo aysan mataqaanaa berito maadaama laga rabo waddankoodii inay hogaamiyaan oo maamulaan dalkoodii laga rabo inay heli doonaan fursad ay ku soo hubiyaan maxaa khaldamay horta shalayto oo laga baaqsan kara maanta inaan lagu soo celinin repetition inaan lagu soo celin qalad hore inaan lagu soo celinin oo hortaan lagu soo qaldamay. Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud oo ah la taliyaha madaxweynaha ayaa gabagabadii sharaxay labadii maalmood ee uu socday shirkan madasha horumarinta Bariga Afrika iyo qodobadii looga hadlay. waxaa sharafeena oo ah dhammaanteen inuu halkan noogu soo gabagaboobay shir inoo socday 2 maalmood oo ay noo qabteen madasha Bariga Afrika cilmi baarista iyo horumarinta magaceedu loo soo gaabiyo DAD oo ay kulana wadaag la ahaayeen jaamacadaha ugu waaweyn dalka sida jaamacadda Muqdisho Banaadir iyo jaamacadda Hormuud. waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale sponsoradii kala qayb galay bangiyada iyo hay'adda Sadar aad baan ugu mahadnaqayaa. shirkan dhab ahaantii waxaa looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo xaaladda waddanka uu ku jiro taabanaysa xaaladda siyaasadeed xaaladda dhaqaale xaaladda amni xaaladda arrimaha bulshada. waxaa la isku weydiyaarsaday doodo kala duwan oo ku saabsan dhammaan qaybaha aan sheegay. nuxurka waxa weeyaan in ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahankeeda ay noqdaan kuwa u hagaya maxaa la yiraahdaa u haya ilayska aqoonta iyo maxaa la yiraahdaa ilbaxnimada. dhab ahaantii maxaa la yiraahdaa cashiradii iyo khudbadii halkan laga sameeyay waxay wax ku kordhinayaan waxqabadka dawladda
waxay wax ku kordhinayaan waxqabadka yani hay'adaha iyo jaamacadaha dadku waddanku uu leeyahay. Anigana waxay sharaf gaar ii ah anigoo ka mid ah guddiga dhaqaalaha qaranka iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha inaan halkan aan ka qayb qaadanay oo aan maxaa la yiraahdaa aan laftigeen contribution ka sameynay. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed in tacliinta lagu dadaalo. Tacliinta ayaa tacabka saxda ah. tacliintaas baa noo horseedaysa nooca dawladda aan rabno iyo nooca horumar aan rabno. Axmed Raas Maxamed Faarax, 5TV, Muqdisho.